laba xubnood oo kamid ah shanta dowladood ee golaha ammaanka ee qaramada midooba ku leh codka qayaxan ayaa fariin loogu hanjabayo madaxda sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee muddaxileedkooda uu dhamaaday iyo dowlad goboleedyada soo gaarsiiyay madaxtooyada Soomaaliya. wararka la helay ayaa sheegaya in xubnaha ka tirsan shanta dowladood ee golaha ammaanka ay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble soo gaarsiiyeen inay cunaqabateyn saari doonaan ciddii tanaasul iyo dabacsanaan la xiriirta dhanka doorashada la imaan weyso. golaha ammaanka ee qaramada midooba ayaa kulan ay yeeshay dhawaan waxa ay warbixino la xiriira khilaafka doorashada Soomaaliya u gudbiyay wakiilada beesha caalamka taasoo ahayd inay gacanta ka taageen xalka gaarista khilaafka doorashada taasoo keentay in golaha ammaanka ee qaramada midooba ay soo farageliyaan. warar toddobaadkii hore soo baxay ayaa waxa ay sheegayeen in golaha ammaanka ee qaramada midoobe ee cadaadis la xiriira inay kulmaan saartay madaxweynaha muddaxileedkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada taasoo keentay in markaasi madaxda shanta dowlad goboleed gudoomiyaha gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta iyo madaxweynaha muddaxileedkiisa ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddaha 2 maalin ah ay kulan ku yeeshaan xarunta teendhada Afisoni ee magaalada Muqdisho. inkastoo wax horumar ah laga gaarin wada hadaladaasi waxaana beesha caalamka wakiiladooda ee ku sugan gudaha xarada xaran ee magaalada Muqdisho ee cadaadis xoogan saarayaan madaxda sare ee dowladda Soomaaliya dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyagoo ku cadaadinayo in xal laga gaaro arrimaha khilaafka doorashooyinka maadaama waqtiga xilheynta madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha dastuuriga uu dhamaaday.